بسم الله والسلام عليكم ديستيا شباب هدي أن أقول على فكرة كي وحواية حلقة حد اللي جوجو إيما موقدان مرة موقدان إن أي دلتا تدعي تران دورشو صوبتو يعني ما أنت واحد مقلة بدي دورشو أردو صوبتو هذا يعني كمش لين هذا الله هايو برهوري إهد إن أهاتو وهي الدولة مادة كذا وحوها دلتا إني جارسيسو دورشو قف يقعد إني جارسيسو أي مادة يعني الدولة دان فرماجو قاميو ونقوم ويسي وحيد دريستي مدهان أمني دلتا يدورشو إني دلتا جارسيسو قف يقعد قبي وحي لو إقبلي دولة محمد عبد الله فرماجو وبالحوينة كيهي أيان قبي صوتها waxay ahayd 3 sano ugu horeysay in laga saaqaado talaabada ugu horeyso ee qaadayso inay ahaatay qaabka doorasho loo qaban karo maxaa yeelay barlamaankii sagaalaad waa tii jawaari u lahaa maxaa yeelay barlamaankii sagaalaad waa tii jawaari u lahaa hadda hada loo sheego markii yani loo doortay barlamaankii tobanaad gudoomiyaha loo doortay waa tii u lahaa hadda aan isu sheegno doorashada dalka qaabka ay noqonayso iyo hadii la qaban karo iyo waqtigeeda markaas ahayd in yani starting point meesha laga soo bilaabo maalintaas ahayd balse hadda iima muuqato orodka lahaayo iyo mataqaana isdiidiid ka socdo in yani doorasho dalka uu gaari karo in la qabto xataa yani haddii nimankan musharaxiinta beris waxday ku heshiyaan hala qabto doorasho إيما موقته إلا قرب كرو صوتها إرجدي لسوحي لها إرجدي شيء واحد قطن يبو ما أنت واحد بقول يبو خلصتودي جينستودي وحالنا واحد أباين يعني إمكانيات أباين لوجستيك أباين وأختها نمك الشباب لأنه إرجوين وارسدان حتى يعني هريتان إرجوين تنفتي ولا وإلا نير على marka waxa waaye waqti ma jiro aniga iima muuqado waqti doorasho dalka laga qaban karo inay soo hartay iima muuqato balse waxa ii muuqdo kaliya in dalkan labada aqal lix bilood ama sanad inta loogu daro kadib ay muddo cusub doortaan guddoonka cusubna oo madaxweyne doorto madaxweynahaasna prime minister oo xukuumad technical in la dhiso oo hal sano in la dhiso si yani dalka doorasho loo gaarsiiyo adiga intaas ay muuqato iima muuqato in doorasho dalka ay ka dhici karto maxaa yeelay xilligii doorashada qabaqaabadeedii iyo tawaawushadeedii ahayd waa la soo dhaafay waxaad sheegtay waxaad ku baaqday guddoonka labada gole ee gudoomiyaha aqalka hoose iyo gudoomiyaha golaha shacabka in muddo 6 bilood loogu daro sababta loogu darayo maxay tahay iyadoo madaxweynaha uu muddo xileedkiisa weli uusan dhamaanin waxaan u jeedaa in aan la qaban karin doorasho yani 40 maalmood in aan doorasho lagu qaban karin cid walba waa arkaysaa waana loo wada jeedaa marka aniga waxaan soo bareerayga waxa ay yihiin labada aqalka sare iyo kan hoose in yani ugu yaraan 6 bilood loogu daro ama hal sano kadib ay doortaan gudoomiyaal ay doortaan guddoonka markay doortaan kadib la doorto madaxweynahaasina oo doorto ra'iisul wasaare oo ra'iisul wasaaraha soo dhisaayo xukuumadda technicalka xukuumad farsamo soo dhisaayo si yani dalka loo gaarsiiyo doorasho ayaan aniga yani bareerayga iyo taladayda ay tahay aniga waxa ii muuqdana waa intaas waayo maalmaha soo haray kooban dalka ma aadi karo doorasho dad badan baa ku dhageysanaya qaar baa ka aaminsan inaad tahay siyaasi mucaarad oo ka soo horjeeda nidaamka ay wax u wadaan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble bal dadkaas oo kale oo oranaya siyaasi cali cabdi baab waa mucaarad weyn oo doonaya in guddoonka labada gole waqti loogu daro meeshana laga saaro madaxweyne farmaajo taana maxay kula muuqan kartaa hadda mucaarad
mucaarad iyo mucaarad la-aan midna hadda ma taagna hadda waxa aan ka hadlaynaa waa mathematic xisaab baan ka hadlaynaa xisaabna waxa waaye af shiinees iyo af hindi iyo af soomaali yani laba ku dar waa afar waxa aan ka hadlayna hadda waa mathematic waa xisaab marka waxaan ka hadlayna waxa waaye muddada soo hartay dalka doorasho ma aadi karaa annagoo og amniga dalka yani markaan ka soo qaado goboladan koonfur galbeed ama koonfurtoo dhan markaan ka soo qaado yani magaalo u furan male tuulo u furan male marka waxa waaye dadka yani indhaha ciid loogu shubo yani ma ahan waxaan suurtagal dadka in lagu maaweeliyo ma ahan runta in la abbaaraa fiican runta in la abbaara in yani si toosa loo abbaaro ayaa fiican marka waxa waaye xilliga iyo waktiga soo haray wakti doorasho la qaban karo ma ahan waa gartay laakiin mudane tan laga hadlayo ahayd oo dib loo dhigay waa doorashadii qof iyo cod waxaa laga doorbiday doorasho dadban guddi doorashooyina la sameeyey haba loogu magac daro gurdiga lagu murunsan yahay ee doorashooyinka heer federaal oo kuwaasi oo mucaarado xoogan kala kulmaya midowga musharaxiinta iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo adigu aad ku jirto in dowladda federaalku ay qaabeyso doorashada iyo sida ay ku dhici lahayd xitaa ay qanciso siyaasiyiinta mucaaradka iyo midowga musharaxiinta oo ra-iisul wasaare Roble uu ka dhawaajiyay maxaa ku jaban baad is leedahay si dalkan doorasho loo aado oo loo helo baarlamaankii 11aad ee bedeli lahaa baarlamaanka uu muddaxileedkiisu 27 bishan December u dhamaaday waxa waaye hadalkii waliba aadan fahmin u maleynaa aniga waxaan leeyahay waqtigii dowladan farmaajo uu ku guuleystay madaxtinimada dalka waxay ahayd mandatekiisa dalka inuu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah doorasho qof iyo cod 3 sano iyo xoogaa ayaa la maraya yani qaabkii uu taagnaa wuxuu saxiixay uu dhahay waxa dalka aan aadaynaa doorasho qof iyo cod ah oo been ah waaya ah ayuu dadka u sheegay oo saxiixay iyagoo yani la og yahay 3 sano iyadoo ay joogto dowladdiisa ayuu wuxuu saxiixay doorasho qof iyo cod aan aadaynaa doorasho qof iyo cod waxay u baahan tahay imkaaniyaad waxay u baahan tahay in dalka tirakoob la suubiyo in afti la qaado in mataqaana deegaanadii ay isku wada furan yihiin qof walba oo qaangaar ah oo 18 jir ah oo Soomaali ah oo muwaadin ah in uu yani codeyn karo dadkii in la wada diiwaan geliyo taasooyinkii yani aqoonsiga waraaqii aqoonsiga waa inay wada qaataan dadkii it's not easy ma ahan yani wax fudud ma ahan doorasho qof iyo cod marka la aadayo sanad iyo ay dhibantaana ma lagu aadi karo beenuu ummadda u sheegay beentiina yani banaankaay soo baxday hadda weli beenuu sheegayaa sababtoo maalmaha kooban ee harsan doorasho ma lagu aadi karo maalmaha kooban ee harsan ma lagu aadi karo guddiga lagu murusan yahay isaga oo magacaabay waatana hadda ay soo saareen warqadda ay leeyihiin yani dibaan u dhignay maxay dib u dhigayaan musharaxiin lama hayo aqalka sare maxaa dib loo dhigaa ergadii lama hayo wax la haya male dad siyaa soo dooranayo warheene wadhintan dhagihiisa iyo afkiisa isma maqlaan waxa uu sheegaaye waa waxaan waxba ka jirin marka maxamed cabdullaahi farmaajo dalka wuxuu rabaa inuu meel xun aga tago dalka waxa uu rabaa inuu meel xun ugu tago isagoo meel xun yaala dalka inuu ka tago rabaa waxaa ka soo hadashay arrinta gobolka Gedo bal Gedana iyana bal arrinta doorashooyinka saameyn ma ku leedahay way ku leedahay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa laga rabaa Gedo waxay ka mid tahay Jubbaland iyo Gedo kama mid ahan Jubbaland tan labaad waxaa laga rabaa xuduudaha Soomaaliya buuraha oo kaliya maahan xuduudaha Soomaaliya liway Soomaaliya waa Kismaayo gadaasheeda وحدود الصومالي يتيا محو عيد مجين واي محل ناقول عجوبة يا أبي سال الله بطل محو جين واي عيد لو يعد محو عيد مجين واي هذا وحتى يعني عيال الدكتور في المجولية حدود الدفاعنا not reality
xaqiiqa ma ahan marka waxaan leeyahay dalka waa ka soo daahday xilligii hogaamiye kooxeednimada farmaajo uu ka soo daahay too late in mataqaanaa hadda isagoo warlord ah inuu yimaado iyadoo dalka uu ka baxay warlordnimadii inuu hadda yani isaga warlord noqdo waa waxaan la qaadan jirin ugu dambeyntii maxaa warkaaga kusoo gabagabayn lahayd maadaama dad badan ay ku dhagaysanayaan oo fikirkaagana si wanaagsan ay ula socdaan aniga waxaan kusoo gabagabayn lahaa hadalkayga dalka xilligii doorashada uu aadi lahaa waa jawaabsi muddada soo hartay muddo doorasho la aadi karaa ma ahan